baddaas markaan wasiirka ahaa New York anigoo jooga ayaa gabadha Muna Sharmaani la yiraahdo familgeeda saaxiib nahay ay iigu timi hotel cabaar baan sheekaysanay waxaan ku leeyahay maxaad qabataa waxay tiri waxaan ka shaqeeyaa qoladaas aan la shaqeeyaa UNCLOS hay'adan UNTA badaha ka waraba ku badii Soomaaliya waxay ugu tiri badii Soomaaliya ee waa la haystaa waxaan ku riyaa haystaa saddex dalbay marka ii sheegtay waxay ii sheegtay Yemen Seychelles iyo Kenya waxaan ku maxaynu ka qaban karaa waxay tiri waan akhriyo waxay tiri application Kenya soo qoratay baa eed jira oo ay sanadka 14 bisha labaad la eegi doono hadii la eego oo aan ka hor imaanin waxay tiri application kaas uu soconaya baddiisaas ku tagaysaa intaas aan haystaan intaas ay qabsatay Kenya antan gabadhu la sheekaystay waxaan ku waxaan rabaa inaan qolada arko UNCLOS waa ii geysay nin lawyer oo East European iyo laba saddex lawyer oo kala la joogay way ii sheegay sidii bay igu sheegeen soo noqday حسن شيخ بانويمي مدحوينه ساسا جرتا وحول الله كما هدلي كره حتى برلمان كاين قبسنايا برلمان كا ديدي قصك جرتا هورا جرتا ورقدي هورا صحيحان عبد الرحمن عبد الشكور iyo groupkii dawladii waqtigaas isfahan ka ahayd waa lagu qabsaday marka badda hadda ma gali karo waa xogaa baan doodnay mar labaad saddex bilood ba waan tagi jiray New York saddex goor aan tagay saddexda goorba aniga safiirka dadka kale intaan ka qarinay nala socda ila baarlamaanka ka cabsanaynay ayaan tagi oo maxaa u cabsanaysan baarlamaanka waa badii helin lahaay baarlamaanka mar dambe loo sheegay baarlamaanka markaa waa niman dagaalamaya joogole oo qalad fahamsan oo la laga hadli karo badda hadii la soo hadal qaado baddaas waa la ictiraafay inay tagtay oo dood ba la geliyo nimankii waxay ku dhahdeen finally waxaan ku documentation ma bixin kartaan aan dawladdeedii u geeyo laba shandadood oo documentation aan soo qaadnay oo sida badaha adduunka yihiin shuruucda iyo dalal badan oo ku guuleystay badahoodii Latin America u badnaay wixii oo dhan baan keenay madaxweynaha madaxweyne waxaan u waday library-ga wasaaradda arrimaha dibadda laakiin wuxuu igu yiri halkan horta aan dhigno bal dad baan adigu aakhirkii Xasan Sheekh mar saddexaadkii baan ku yiri Muna Sharmaani waa gabar meesha ka shaqeysa aan keeno saasaan Muna ku keenay saasaan madaxweynaha ugu geeyay aniga Muna marka si fiican u qancinay marka sheekadu bakhaayada New York bay ka bilaabatay saasaanay dacwadii lagu galay dacwada dabcan dhulka inaga leh inaga waxaan hadda muddada loo soo jiidayna waxa weeye dabcan way muuqataa inaynu inagu leenahay badda haddii amarka Ilaahay mooyaane sida sharcigu yahay xuquuqdeeni international community maxay tahay nimanka ka socda ee judgeska ah ee mid badalka iyo meesha jooga badda Soomaaliya la way nooyeen saxid doonaan ta amar Ilaahay oo kale aanu ma garan laakiin rajadaydu aad bay u sareysaa adoo inta soo xogahaya soo dhiraandiriyay kow soo bilaabay albaabkaasna boorsooyin dokumentiga ka soo qaaday UNCLOS hadda waxa tahay baarlamaanka qayb ka tahay dawladda wali ma ugu yartaa arrinta ma hor yimaadeen si ay xog idin siiyaan arrinta ku saabsan dacwada badda حتى أنا قال لكم مدرن دتك كل بتجني أوكي محل هيك مركز ضد ضد على الدراية ولا كحياة قريب كان نقطة أو تعوضة أو دقيسته حتى يقوم يدرن مرنا لكن دولته هذا بكرنا يا رنتي بكرنا لو يردي هو ولا مواتجين منا واتكتي أحمد داير ولين وكتير موجي لكن حاجة ولا ويكتيره ترى يا لو يرن قدر تضبطي هره وحالة بدلي قدوميه محكمة ICJ عبد القوي gabar Mareykan lagu bedelay bedelkaas leedarkiisa shaki ba marka aniga inaan xaq leenahay shakiga ma jiro laakiin waa lagu doodsan karaa marka bahashaas inaga le waa la og yahay waxa keenay kolba dib ugu dhiganaysay walwalay qabtay waxaan rajaynayaa in Ilaahay nagu maaragtay dadka garansiyo xaqa wax kale oo sameyn kara inaad duceysano mooyaane itaal ma jiro isku soo duubduub dardaarankaaga siyaasi ee ku saabsan doorashada arrintii gobolada waqooyi ama xagga Somaliland halkan doorashada ku gaay isku soo duubduub dardaarankaaga muhiimka oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo shacabka baad kula hadlaysaa dardaarankaygu waxa weey in badanna waa sheegay in badanna waa ka hadlay Soomaaliya ka baxa qabiil ka bixi mayno waxayniina dad bay ku nool oo gurta
danaha interestka dawlad waliba interest bay leedahay mana jirto caalamka dawlad qabiil lagu sameeyo baarlamaanka oo la yiraahdo reer hebel iyadoo la isku wada duldulman yahay dhowr iyo 30 qabiil oo Soomaaliyeed baan baarlamaanka ku jirin intaas soo jifo oo qabiil walba hoosta la midun baa kaga jirta intii kale dhanna waa dulman yihiin marka waxa weeye haddaynan waxeenan si ay nuga faa'iido dhalinyaradeenan boqolkii wadankan 70 waa dhalinyaro mustaqbalka dadkaasi waa baaba haddaan maanta la tashanin lagu heshiin waa aragteen 15 16 17 ilaa maanta 2021 tahay inta qabiil aan lagu heshiinaynin baa la soo waday maanta ugu darantay ka gudba ka baxa soo dawladda Soomaaliyeed waxaan u sheegay tanaasul baa leeyahay karaba ummadda shacbiga Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ka dagaalama xuquuqdiina u dagaalama dawlad goboleedyada waxaan leeyahay Soomaalinimada ilaaliya حق بقول لهن أنا فدرال كمرة هدي اللي يروى فدرال وكونستيوشن كله بقرأ وأمسنا هاي إن الحق ده هلا وأنا أمسنا هاي دولة قبلية عريسان وحك عريسين وإلا لا فهم ولا أركو وإلا لا الشدة محاضر هالك وحكي صحنا ونفرق وحكوا في عيه ولا لو بالليل دجال وحبل ويل مدة اليوم دجال وحود عرفت ويل بكون أنت مضب كان اللعبة شباب وحنقبا ورق Soomaaliyeed iyagana fariinta 2013 wasiirka su'aashaas ku weydiiyay waxa dhimanaya wiil Soomaaliyeed waxa ay dilahayaan waa wiil Soomaaliyeed shisheeye laguma dhex dhinto waxa isqarxinaya waa wiil Soomaaliyeed su'aasha ku weydiiyay waxay ahayd diyaar muutina wada hadal la furtaan wiilasha Soomaaliyeed waxay doonaan ha aaminsanaa hadii la wada hadlo waxba ka soo bixi kara aad baan u dhiirigelisay waagaas hadda maxaad aaminsantahay hadda la taaganay hal la heshiyo waa rag Soomaaliyeed haday siyaasadda rabaan ay soo galaan xaq bay u leeyihiin mabda ay qabaan ha lagala doodo yaa dhinta waa 20 jiro 520 jir iyo 520 jir la iska horkeenayay dhamaynaysa cunaya إنه أنت هل كانت مادة إسقرحنا قفقة إسقرحنا يا desperation باقينية أما حنون أهم desperation نمك واوين أما ذحذا كأهل واحد شرك كان عصته واحد شردد واوين أو مسؤولين واوين أو شباب أو ودك دحشوجة أول يقانو وحي رمان هلا قال هذا والصومالية كعور ده مبدأ بين ليه مبدأ وذا هلا قال هذا تناسل هلا يسوس سميه هذا ما استفيد